وبركاته وأرورنما أحد تاريخه يكون بيجنتاي لحد بيش لبعض لو كنا لبعضني لبو كنا استثنتاي لحد بيش تبعض كنا فرق ولا فرق تسدح وحنا كان نسكوي معني برنامج تابورات حفلات سودوين ترتنك سنة كل لو كنا أنت أنا برنامج كنا كجود قلنا وحنا كفرضنا عيدا قرآن كريم كونوس جدنا ولكن قارئين عدك معان عبد السلام محمد عيسى سودو على السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون waxaa soo mari doona maalmo farxadeed iyo saacado qurux badan kuwaas oo noloshiisa iftiiminaya sida dayaxa oo kale adduunyada dhamaanteed ayaa ah mid u samaysan laba waji oo kala ah maalin ay kula jirto iyo maalin ay ka jirto hadii adduunka aad dareento cariiri iyo in sidii aad wax u rabto aysan u socon waxaad u baahan tahay isbedel dhab ah kaas oo aad ku bedelayso naftaada adiga oo aad raadinayso waxa aad ugu gudubto caqabadaha ka hortaagan in ay horumar iyo mustaqbal weyn naftaada in aad ku bedesho qaabkii ay ahayd oo aad u bedesho jawi cusub iyo xaalado ka duwan tii aad markii hore oo aad ku jirtay adiga oo ka rajaynaya nolol kaas ka wanaagsan balse in aad samayso isbedel sax ah oo noloshaada wax ka bedelayo waa mid adag una fududeynayso qof kasta oo aad u wanaagsan dadkii isdhaafsanaya oo aad dadka qaarna nolosheeda meel sare u gaareen halka kuwa kale ay nolosheeda ku adag tahay ilaa waji iyo baxsan weysay heerarka nolosha iyo waayaha adduunka qofka markuu uu rabo in uu bedelo noloshiisa waxa ay ka dhigan tahay in uu ka tagayo wax walba oo aad naftiisa hore u ahayd yacni waxa uu qaban jiray dhaqamadiisa dhammaan qaab nololeedkiisa wax walba oo aad ku saabsan noloshiisa in uu bedelo arinkaas ma ahan mid fudud balse waxa ay u baahan tahay in aad yeelato go'aan adag mawjadaha aqoonta mirihii ka soo baxay midigtan ku haynaa mufti caalima iyo maahir muhandisa madaxdii wax maamusha muruqood ma maaline muwaadiniinta oo idil midkay ka aflaxayeen mudnaan macalin baale aan soo qodobkeena xiga cabdirasaaq guure oo inoo soo jeedi doona kelmadiisa ku soo dhawo masraxa mikrofonka أنا نقرأ وأقدم عبارات الشكر للمعلم أقول معلمي رزقك الله الصحة والعافية بعدد ما علمتنا إن بناء العقول أصعب من بناء البيوت وقد كنت يا معلمي ببناء خير لها فقد قمت ببناء عقول كثيرة وشيدتها بمعالم الصدق والأمانة لنجاحها لذا نحن نقدر جهودك المضيئة يا معلمي فأنت أهل للشكر والتقدير والثناء أنت يا معلمي كالمصباح الذي ينير للطريق الذي فيه في ظل وجودك ظلمات الحياة فأنت آل للشكر لرائد فصلنا الأستاذ الفاضل حسن عبد الله عبد الواحد فهو الشخص الوحيد الذي علمنا الثقة النفسية أنت مثال نموذج لرواد الفصول أم القرى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا هل كان ما سير أقولنا يا سكول كيو أرضية فصل كفوم تري تحدان ترينا يا ما واحد المامايو كم تران ترضوا عن كتاك صداي هل كونا قتمنيا كل تحاشا بل ما أنت متيرين لي بعدين تساليني هل كي قاعد تبلو إيجو تاريخ الجلية أم القرى سكول با أرلجينا الصومالية أم القرى سكول با أرلجينا الصومالية عاصمة المقدسية أرديدي كل قناة وإفتشاء قانتيو كعرب ترجهلية أقاسميال معنيمينيو كأفلح أقانتيو سكول كي كسوغن يهين والدو ما أكتهاي أردي ما مكتهين فصلة سكول كيو افتري هدان إذين برو فصلة سكول كيو افتري هدان إذين برو تعليم سكول كتال مركي لوقبي طبعا سقال أيجي كتل ماميهين افتري هدان إذين برو رجل تمنايا كجرو وسارة مركي لتجو تبتنك إني جلان سكول كنا كشرف تران تبت
ay u nidaamsan yihiin haddaan taabto aan wax yar idinka soo taraxo waxaan tiro lahaa ashqaas tiradoodu kooban tahay FTR waxay u taagan yihiin tubtaanka inay galaan una tartamaan cilmiga Ustaad Xasan Roble asaguna waa taladoo wixii tolan buu saxaa guul dhaliya midhaheed mar iyo laba waad dhici mar saddexaadna waad dhici ha ka dhigin guul darada hana noqon dhagaystaha dadka dhowhan hadalkood diin bay dad dhaheen buur dheeri ma kori karo waa xayawaanka aan dhalin guul uu ku dhaashado rajo dhowristiisii diin baa dhabeeyo handadaalkii dhididkii iyo ficil dhaqaaqii buurta dhalada uga degay dadka dunida dhaqaajee kolba dhan uu hagayee teknolojiyad dhammaystiran daafurkeedu dhalan rogay xubin adiga kuma dheero dhagahoodu maaha 4 6 dhaayoodna ma laha sidka aad ku dhalatay dharaar qudha kama dambeyn dhibtaad marta way maraan kabna dhidid saydhid badnidee dadaalkay ku dheeryihiin hankii dhaawac gaadhay himnada la dhimatee fikir maanta kugu dhashay qabsashadiisa dib ha u dhigin mar kastaba dhiiranaan soco hana dhimin adoo qaba fikir guul dhalin kara wax kastoo dhici kara ha ka dhigin waxaan dhici karin rag baa dayaxa ku dhiiraday guur inay ka dhistaan dhawaan u guuri raba subhanahu wa ta'ala oo caafimaad na siiyay jaaniskan na siiyay ma garanaysaa nawaafijiyay haddana waxyaabaha adduunka ugu wanaagsan inaan shaqadan ilaahay ka dhigay yacni inaan nahay dad wax isbara macallimiin iyo maamul ku howlan sidii jiil loo dhisi lahaa iyo arday ka faa'iidaysanaysa macluumaadka loo soo gudbinayo sidaa daraaddeeda waxa weeyaan waxaan adduunka aan ka haysanaa meelaha ugu wanaagsan in aan kobcino aan dhisno horumarino tarbiyayno jiil cusub si ummadda ay u hogaamiyaan arrintaas waa arrin aad iyo aad muhiim u ah sidaa daraaddeeda ardayda waxaa laga codsanayaa ama la farayaa in ay ka faa'iidaystaan jaaniska ama fursadda ay haystaan yacni xadiid uu warinayo cabdulaahi bin cabbaas radiallahu canhu oo imaam bukhaari uu soo saaray wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam nicmataani sidaa daraaddeed marka jaaniska maanta aad haysato waxa weeye waa wax qaali ah waaye waan ilaahi subxaana wa tacaalana wuu ku weydiin doonaa yacni wakhtiga waxaad ku baabi'isay wakhtiga iyo jaaniska lagu siiyey waxaad ku baabi'isay waa lagu weydiin doonaa jaaniska ama nicmada labaad oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay dadka inay ku kalsoon yihiin oo aan ka faa'iidaysanin waxa weeye asixatu iyo caafimaadka dad badan oo adig kula daa u dhaxeeya 10 sano ilaa 20 sano inta u dhaxaysa jira oo indhool baa jira kuwa badan oo meelo badan ka xanuunsan baa jira oo ma artay ayagoo dhaqaalihi awoodi kara maskaxdiina awoodi kara laakiin xanuun darteedii u waayay inay wax bartaan sidaa daraaddeeda marka nicmadii caafimaadkana waad haysataa jaaniskii nicmadii jaaniskana waad haysataa labadaas marka inaad ka faa'iidaysto waa arrin daruuri aad iyo aad u muhiimsan weeye waxaan kaloo dhihi lahaa munaasabadan anigoo ku dhisaya galaaska form 3 oo runtii soo agaasimay fadhigan quruxda badan muxuu ahaa yacni soo agaasimay barnaamijkan lagu furfurayo tartan aqooneedka sanadkan fasalka form 3 waxaan leeyahay waa mahadsantiin jazaakumullahu khayr runtii waxaad samaysaan isbeddel waxaad samaysaan go'aan waxaad samaysaan jawi degan xasiloon fasal macallimiinta ay u soo xiisaan oo sanadihii hore ka bedelan aad ugu bedelan runtii marka laga hadlayo sababtoo ah fasal aad u degan oo xisooyinkii bixintooda ay u fududahay macallimiinta ay u soo xiisaan marka fasalkaas isbeddel u sameeyey runtii formaster aan dhihi karo waxa way ku dayasho mudan yahayna wada haysataan sidaa daraaddeeda marka waa idin bogaadinayaa barnaamijka quruxda badan oo aad ku furfuraysaan idinka iyo formasterkiinaba insha allahu tacaala waxaa idinka rabnaa marka dhoolatuska hadda aan tusteen ina sanadaha soo socdo form 4ka markii la gaaro waa xilliga ee aad indhaha idin soo fiirinayaan maamulka idin fiirinayo macallimiinta idin fiirinayaan ardada kale oo mulqura dhigata idin sugayaan marka in xilligaasna sida hadda dadaalku u muuqado لسي لابو سي رجدا أن قبنو ما أرتقوا من الإنسان هل كاس هذا كان كسو كبويا إن شاء الله تعالى جزاكم الله خير إلهي أيام ماد إسكاله
munaasabadda qaaliga ah ee maanta aan joogno in fasalka form 3 uu noqdo fasalkii maanta daahfuray tartanka sana dugsiyeedka 2021-2022 iskoolkan waxaa ka qalin jabiyey oo ka baxay arday qaali ah. form 4kii hadda ugu dambeeyey wuxuu ahay form 4 ebedkii ugu saameynta badnaa ee aan wax u dhigo fasal aan galo ee ka saameyn badnaa ma jirin fasalkaas ee hadda qalin jabiyey. tilmaamaha ay lahaayeen wax kale ma ahayn, waxay ahaayeen dad isjecel, waxay ahaayeen dad isku xiran, waxay ahaayeen dad maaragtay jecel hadafkooda ugu dambeeyo iyo yoolkooda ugu dambeeyo inay gaaraan. tilmaamahaas fasalkaas oo lahaay kuwa badan oo kamida maanta waxa ay ka soo muuqanayaan fasalka form 3 maadaama marka tilmaamahaas ay soo muuqanayaan waxa horseed u ahay ee barnaamijkan keenay ee fasalkan maaragtay in dariiqaas guusha ah iyo wadadaas wanaagsan ay qaado oo maaragtay sabab u ahay macalinkeena qaaliga ah macallin xasan kaliya ardayda role model ma ahan annagana waa noo yahay tusaale nool on ku dayanayna waaye khayr badan Allah siiyo. waxaan kala rabaa inaan sheego ardayga maanta meeshaan dhiganayo waxa uu marketing u yahay umulqurahu marketing u yahay. waxaad tusaale ka soo ogaanaysaa ardaydii ugu dambeeyay ee sanadkan qalin jabisay imtixaanaadkii dawladda ee la galay maadaama dhibcihii annaga aan rabnay iyo juhdiga aan bixnay iyo dadaalkii iyo mirihii waxyaabihii aan filanayna maadaama aanan helin waxyaabaha aan ku qanacno waxaa ka mid ah ardaydii markii imtixaano kaloo la qaadaa jiro oo jaamacadaha ay qaadaan jaamacadda ummadda oo kaleeto jaamacadaha localka oo kaleeto oo kuwa dawliga aan ahayn imtixaanada ay qaadayeen ardayda waxay noqdeen kuwii ugu dhibcaha badnaay dhammaan fasalada kuliyadaha kala duwan oo dhibcahooda adkaay hadday medicine tahay hadday engineering tahay hadday kuliyado kale ay tahay dhammaan ardaydu way ka muuqdeen. taas waxaa ku mahadsan maamulka iyo macallimiintii juhdigaas intaas la eg bixiyey. waxaa ka soo haray fasalkan hadda qalin jabiyey fasalkii ka horeeyey oo asagana maaragtay dhammaan iskoolaadka ayagana macallimiin ka noqdeen. arday kasta markaa waraysato macallin baan nahay maada hebeelaan dhigaa kanaan dhigaa marka waxaa alxamdulilaahi ah ardaydii meeshaan ka qalin jabisay oo baxday iyo kuwa hadda joogaba inay tusaalayaal bulshada u yihiin inay maaragtay dad bulshadii shaqo muhiim u hay inay yihiin ardayda fasalka form 3 xaqiiqatan waxaad cagta saarteen wadadii nabadda ayaa cagta saarteen wadadii guusha cagta saarteen wadadii tacliinta cagta saarteen waxaa la rabaa marka wadadaas ilaa iyo dhamaadka oo aad ka qalin jabinaysaan ina wadadaas ah heesaan oo hal meel aan looga leexanin fasalkaasuna oo noqdo sida hadda isku xiran yahay fasal isku xiran iska warqabo ardayga liita in laga warqabo midka xanuunsan in laga warqabo midka aan tacliintiisa maaragtay xunta in laga warqabo wax kasta fasalkaas waxaan ka rabaa sidii fasalkii qalin jabiye oo kale inay noqdaan aadaan u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ugu horeen madaxa mu'asasada umulqura maama Khadiija Maxamuud Maxamed marti sharafteena macallimiinta guud ahaan iskuulka iyo dhammaan ardayda fasalada kala duwan iyo darajooyinka kala duwan ay ku fadhiyaan. intaa kadib maanta waa maalin kale waa maalin labaad oo aad u farxad badan aad u qiimo badan aad u darajo badan oo ay leeyihiin arday ka mid ah ardaydeena sharafta badan. waa la hadlay looma hadlee maxaa haray ayaa loo hadlaa. xaqiiqatan dhammaan intii hadal mudneed way hadashay. waxaan leeyahay sidii lidinkugu maaragtahay baraarujiyey barnaamijka maanta aa qabateen sidii maaragtahay lidinkugu hambaliyey sidii lidinkugu dhiirigeliyey inaad hormuud u noqotaan sanadka soo socda 2022-2023 insha Allah waxaan rajaynayaa inuu noqon doono. midda kale xigto berri tartanka bilaabanayo waxa daafuray fasalka maanta masraxa u goglan yahay form 3 iyo fasalka dhigooda aan ka liidanin ee form 1 waana fasalo maaragtahay isku aadkooda xiiso badan u dhaliyay marka guddigu diyaarinayna aan aad uga warqabnay. waxaan leenahay guul ayaan idin wada rajaynaynaa guud ahaan ardayda fasal hadduu guulaysto ma ahaan in kuwa kale ay guuldareysteen umulqura dhan ayaa guulaysatay. haddii maaragtahay galab laga guulaysto subax ayaa guulaysatay haddii subax laga guulaysto galab ayaa guulaysatay. sanadkan waxyaabaha soo kordhay ayay ka mid tahay in insha Allah tacaala ardayda tartamaysa laga dhex bixin doono arday gaar ah oo insha Allah tacaala wajiga mu'assasada umulqura iyo magaca umulqura ku tartami doonto kuwaas oo insha Allah tacaala ka qayb qaadan doono tartamada waaweyn ee magaalada ka dhici doona. waxaan ku tala jirnaa guddiga haddii uu maaragtay tartanka yahay iyo xafiiska waxbarashada iskuulka aniga iyo Musaad Maxamed
inaan xulno oo aan aad ugu dhabagalno mu'asasadana way nala joogtaa ardayda u qalanta ee insha Allah tacaala u dagaalami karta sumcadda Ummul Qura in bal sanadkan la soo dhiciyo koobkana loo soo hoyo Ummul Qura war diyaar soo manihin waad maasantiin aadaan u maasantiin salaamu calaykum waraxmatullah qaybahooda kala duwan ardayda aadka u qiimaha badan ee wajiyada quruxda badan barnaamijkan maanta iyo halkan isugu imaanay oo ay taabo gelinayaan ama isku dabaridkiisa ay leeyihiin fasalka form 3 oo aanu leenahay juhdi iyo dadaal badan ayay bixiyeen taas oo dabagalkeedana uu saameyn weyn ku lahay al-ustaad xasan iyo dhammaan macallimiinta kale ee iskuulka Ummul Qura ilaah baa mahaddaasoo dhan u sugnaatay intaas kadib maanta barnaamijka halkan aynu u taagannahay ama aynu u fadhinaa wuxuu yahay fasalka form 3 oo sidii hore aynu ogeyn laba fasal oo isku soo biirtan ahay tashwiish badanna oo ka jira fasalka xagga macallimiinta xagga maamulka alxamdulilah ilaah baa mahadda iska leh waxyaabihii tashwiishkaas ee ku jiray inay maantay ay naga shaafiyeen caddeeyeenna inay yihiin fasal isku duuban oo hormuudna u fasalada kale marka laga reebo fasalka hadda baxaya ee form 4 qorshahoodana uu yahay in maadaama fasalka hadda qaybaha tartanka 7 bisha noo bilaabanaya fasalka ugu sareeya oo yahay dan aynu dhammaan aanu ku daysano hormuudna ay u noogu noqdaan waxaan leenahay form 3 aad iyo aad mahadsantihiin wada shaqaynta iyo juhdiga iyo dadaalka oo ku jirana in la yiraahdo gudoomiyihii ardayda oo wax badan ka bedelay fasalka iyo juhdigiisa iyo sida wada shaqaynayo waxaan leenahay aad baad u mahadsantihiin guushii aad hadda cagteeda haysaana ama wadadeeda aad ku jirtaan inaysan meel dhex idinkaaga burburin oo si guul leh aad ugu dhamaysataan waxyaabaha la iska rabo marka ardayda waxyaabaha ugu horeeya waxay tahay waa akhlaaqda wanaagsan akhlaaqda wanaagsanna qofka waxay ku hagi doontaa wadada saxan ayay ku hagi doontaa sidoo kale akhlaaqda wanaagsan markii la helo qofka cilmiga uu baranayo aad buu u jeclaa doonaa inuu horumar ka gaaro bulshadana wax ku taro naftiisana wax ku taro waalidkiisana wax ku taro wadankiisana wax ugu qabto dhammaan intaasoo dhanna waxaa kulmin kara waa akhlaaqda wanaagsan ayaa kulmin karta marka insha Allah tacaala waxyaabaha aan rabno waxay tahay waa in lagu dadaalaa waxa la yiraahdo waxbarashada marka lagu dadaalayo waxa ugu horeey doona waxay tahay waa quraanka markaad akhrisid niyadaada wuu ku qaboobaya wayna ku xasilaysaa cilmiga kalena wuxuu u yahay furfurasho u yahay wax badanna ilaahay waa ku fuday doona marka insha Allah tacaala waxyaabaha aan rabnaa waxay tahay qofka inuu juhdiga bixiyo subaxdii markaad ka soo kacdid oo salaada aad dukatid hal maqro aad akhrisaa wax badan ayay ku qabanaysaa marka insha Allah tacaala waxayna ku furfuraysaa berito ama subaxaas casharka qaadaleed inaad si fiican aad u fahamtid ayuu ka qayb qaadanaya marka insha Allah tacaala waxyaabaha aan rabnaa waxay tahay in waxbarashada aynu ku dadaalno macdaalika waxaan leenahay sumcadda banaanka nooga taalana waxa noo keenay waa ardayda wajiyada quruxda badan leh dadaalka iyo juhdiga ay ku bixinayaan waxbarashada waxaan leenahay aad u mahadsantihiin sida aad juhdiga u bixinaysaan si laba jibaara أولاً إله باماد إسكاله سبحانه وتعالى أنه عافمات قبنا هل كان نقصه كل ميي سيدو كلا وحنو ماد علينا دمان مامل كقيبي سكال الدوان قارهان مامل كقيبته وحبرشده مرتدى قيبه هذا كلا الدوان أرضيدا
si gaara form 3 oo munaasabadan qiimaha badan soo agaasimay oo la dhihi karo xaqiiqatan waxay soo bandhigeen arrinku dayasho mudan fasalada kale inay ku daydaan form 3 hore waxba looga sheegi jiray laakiin markaan wanaagooda iyo khayrkooda ayaa socdo waxaanu leenahay waqtigaad ku soo bixiseen iyo qarashkaad ku bixiseenba aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin munaasabadan aad soo agaasinteen sidoo kale form 3 waxaa sabab loogu nisbeyn karaa bacd allah ustaad xasan oo formasar u ah oo xaqiiqatan isbedel badan ku soo sameeyey dhammaanna macallimiinta formastarada ayagana sidoo kale way dadaalaan marka waxaanu leenahay jazaakumullahu khayran aad iyo aad ayaa ugu mahadsantihiin sida quruxda badan oo barnaamijkan u soo agaasinteen gogoldhig iyo hordhacna oo u yahay tartan aqooneedkii mu'asasada ay samayn jirtay oo asbuucan insha allahu tacaala bilaabo doono waxaanu leenahay maadaama form 3 oo yahay fasalka tartanada ka qayb qaadanayo ragga ugu sarreeyo khayr iyo natiijo wanaagsan ayaan inii rajaynayaa wixii talooyin iyo nasaa'ixa dabcan waa la soo wada gudbiyey waxaanu leeyahay kaliya aan ku darayaa in akhlaaqda aad loo ilaaliyo qofka akhlaaqda hadduu ilaaliyo bale ardayba ardayga oo ka akhlaaq badan yahay wuu ka aqoon badan yahay miisaan isisaar ardayga aad ka akhlaaq badan tahay waa ka aqoon badnaanaysaa ardayga ka akhlaaq badanna wuu ka aqoon badnaanayaa marka akhlaaqda waa wax aad iyo aad u qiimo badan oo qofka janno oo ku kasban karo lianna allah subxaanahu wa tacaala nabigeenna markuu ka hadlayay sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku tilmaamay wa innaka la ala khuluqin cadiim waxaad ku sugan tahay nabiyullaahi muxamedow dhaqan weyn cilmi weyn lama dhihin dhaqaale weyn lama dhihin waa dhaqan weyn midku dul sugan ayaa tahay marka dhaqankeenna iyo akhlaaqdeenna iyo dabeecadaheenna insha allahu tacaala aan ilaalino waxbarashadana aan ku dadaalno maadaama waqtiga gabaabsi oo yahay kelmadeeda inta ayaan ku soo gaabinayaa wasala allahu calaa nabiyina muxamed wanashkuruhu والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين الحمد لله شكر رب العالمين ما هذا إلهي بيوسقنا سبحانه وتعالى نقول الله استي ماركتي نعمة أنت رضا بدن له إلهي ما أقوم هذا علينا saake halkan waxaan lagu macnaha la igu soo martigeliyay oo mahad iyo sharaf iyo maaragtay mahad celin baan u gudbinayaa ardadayda ma sha Allah wajiyada qurxoon leh dhalinyarada khayr badan Allah idin siiyo ayagoo saake raba barnaamijkooda sanad dugsiyeedka tartan aqooneedka saake iftitaaxiisa ay tahay inaan ka soo qayb galay aad ugu faraxsanahay ما شاء الله أن لا يهاي الحمد لله شكر رب العالمين برنامج كمعناها وين وحنبارسين يهاي وح معركة سهلا معها ترتن أقونات مرها دعم قشيت معناها وحواي وح كورينايا أما كبعينايا مسكح هذا معركة إن ترتن أقونات كنا موستلي وحقوق بدن يهاي أقون جود أيه وبدن تهاي ما هنا أقون تكلية أو سكول كأكو قاعدتين أقون بدن ومعناها وحنبارسين يهاي مركا حافظ ذي سنين وحادو ونكسن waaye maaragtay maskaxdaada ku dhismayso maaragtay idinka hadhowti ku heli doontaan maaragtay inaad nin codkara ah ku noqoto ama gabar codkarada aad ku noqoto inaad barnaamij soo diyaarisid wax weyn waaye inaad maaragtay aqoontaada kor u qaadid bari ka maalin inaad ka mid noqotid maaragtay tartamada maaragtay caalamiga aad bari ka soo qayb gali kartid inaad bari qudbad inta u istaagta aad jeedi kartid macnaha waxyaabo badan ayay xambaarsan tahay marka insha Allah ka faa'iideysta waqtigiina waqtigana sidiisaba waxa waaye wax oo maaragtay qiimo badan oo maanta wax badan aadan dareemi karinina balse waxaan idin kula dardaarmayaa macnaha waqtiga qaaliga oo aad maanta haysataan ama sijaaniska aad maanta haysataan inaad ka faa'iideysataan ogaada waxyaab arday badan oo idinkoo kale toola maanta jaaniska ah haysatiin aan haysanin marka waxa yeeshiin ha u malaynina koow hortore waalidkiina inuu idin ciqaabayo hooyada ha noqoto macallinkaaga ha noqdo maamulka ha noqdaano in la idin ciqaabayo marnaba ay kula noqonin waxa lagu baaqaynina ama se la rabaa in la koriyo maskaxdaada ma ahan jirkaaga kaliya in la koriyo marka waqtiga waa wax aad u qiimo badan waxa lagu la daba ordaayo
barayo ama se lagu nidaaminayo waxa waaye in wax laga baro nolosha waxa ay tahay oo ku soo wajahan maanta nin yara tahay beritoolo nin weyn aad soo noqon doontaa berri waxa laga yaabaa nin maamulka Soomaaliya wax ka qabta inaad noqoto gabar Soomaaliya maanta wax u tartay inay noqoto gabdhaheena insha Allah hooyo wanaagsan inay noqoto hooyo akhlaaq badan inay noqoto wiil wanaagsan oo dabeecad fiican inaad noqotid akhlaaq wanaagsan inaad noqotid ma ahan macnaha inaad ka duwanaatid waa cunuga iskuulka aada iyo adiga oo college ku jiro ina kala duwantiin ayaa loo baahan yahay laakiin raayil caalamka Soomaalida waxay aaminsan yihiin cunuga college-da ku jiro inuu cunug xun bayahayba laakiin waa opposite waaye